السلام عليكم dhamaantiin saaxiibada sharafta badan muuqaalku wuxuu ku bilaamayaa Magra iyo Paris halkaasoo Paris ay Magra weydiisay inay wax ka qarinayso iyada iyo in kale waxay kaloo intaas ku dartay inay aragtay inay u dhaqmayso baryahan si ka duwan sidii hore ayna ka baqayso in Magra ay khiyaamayso qabiilkooda Paris kaliya waxay rabtaa inay ogaato sababta Magra ay ugu dirtay ninkeeda iyo caruurteeda inay u keenaan boorsadii laga xaday iyada markay tan maqasho Magra waxay u sheegtay Paris inay weli sideedii tahay waxayna sidoo kale u xaqiijinaysaa inaysan weligeed khiyaanin qabiilkii u kaalmeeyay maalmaheedii xumaa muuqaalka soo socda Baba Voss Kovan iyo Haniwa ayaa lagu arki karaa kaynta iyagoo raadinaya boorsadii yareed ee Magra ee luntay Baba Voss wuxuu ka codsanayaa Kovan iyo Haniwa inay feejignaadaan oo ay dhageystaan dhawaaqyada u dhow daqiiqado kadib Kovan wuxuu sheegay inuu maqlay guuxa qof kadib markuu helay tilmaamaha Kovan Baba Voss wuxuu go'aansaday inuu raaco codka waxyar kadib waxay gaareen deegaan qashin qub ah Kovanna wuxuu bilaabay inuu Baba u sharxo meesha Baba ayaa markaa ku soo gabagabeeyay in kuwii ku noolaa meeshan ay noqon karaan kuwii xaday alaabtooda Haniwa waxay go'aansatay inay meesha dhex gasho oo ay raadiso hantidooda qaaliga ah kadib markii ay waqti ku qaadatay raadinta agagaarka goobta Haniwa waxay ugu dambeyntii heshay boorsada hooyadeed intay boorsada soo qaadayso oo ay soo jeesanayso ayaa waxaa soo weeraray qof aan la garanayn dhanka kale Kovan iyo Baba waxay maqleen qaylada Haniwa waxayna u soo yaaceen goobta sidaa darteed waxay helayaan iyadoo miyir daboolan oo dhulka taala marka Baba iyo Kovan ay isku dayaan inay toosiyaan Haniwa qofka daahsoon ayaa weeraray Baba nasiib wanaag Kovan ayaa maareynaya inuu aabihii ka riixo weerarka isla waqtigaas markuu la waayay weerarkiisii ugu horeeyay qofka daahsoon ayaa markaa u weecanaya dhanka Kovan isagoo isku dayaya inuu dilo intuu qofka daahsoon isku dayayo inuu dharbaaxo kama dambays ah u geysto Kovan Baba ayaa gadaal ka soo weeraray qofka daahsoon wuxuuna sii waday inuu dilo isaga markay tan aragtay Haniwa waxay ka codsatay Baba Voss inuu iska daayo qofka daahsoon kaasoo magaciisa ku sheegay inuu yahay Butis kadib waxay weydiisanaysaa Baba inuu taabto laabta Butis oo ku taala calaamada isha oo la mid ah tii warqada Jelamarel tani waxay la macno tahay inuu sidoo kale wax arki karo markuu tan maqlay Baba wuu iska fasaxayaa Butis dhanka kale Kane iyo kaaliyaheeda dhow ee Nairi waxay istaageen meel ay ku nastaan kadib waxay ku soo noqonaysaa gaarigeedii laakiin waxay heli weyday daraawalkii marka Kane ay hore u socoto oo ay raadiso daraawalka koox daahsoon oo dad ah oo la yiraahdo Shadow Warriors ayaa weeraray Nairi oo dilay intaas kadib laba Shadow Warriors ah ayaa sidoo kale weeraray Kane oo ay afduubteen muuqaalka soo socda Haniwa Kovan Baba oo uu weheliyo Butis ayaa ku soo laabtay meesha Magra iyo Paris ay ku sugayeen Haniwa waxay isla markiiba hooyadeed ku wareejisay boorsadii qaaliga ahayd waxyar kadib Paris waxay ogaatay inay jiraan in ka badan 4 qof oo hareerahooda jooga waxayna wax ka weydiisay Haniwa ayaa markaa ugu jawaabtay Paris in magaca qofka dheeriga ah uu yahay Butis oo uu sidoo kale kamid yahay ilmaha Jelamarel waxay ku adkaysanaysaa in qof walba uu u ogolaado Butis inuu la joogo Butis sidoo kale wuu hadlayaa wuxuuna u xaqiijinayaa kooxda inuu u caawin doono si kasta oo uu awoodo Magra ayaa ka fikirtay in muddo ah ka hor intaysan u ogolaan inuu ku soo biiro marka xigta Kane waxaa la keenay deegaanka xariirta lagu sameeyo oo loo yaqaano City of Worms Shadow Warriorska waxay Kane u soo bandhigayaan hogaamiyahooda Carter kaasoo ku booriyay boqorada inay u shaqayso iyaga adoon ahaan isagoo aan garanayn aqoonsigeeda dhabta ah Carter wuxuu Kane ku qasbay adoonsiga iyadoo ka xanaaqsan ficilada Carter Kane waxay u hanjabtay oo u sheegtay inuu khalad weyn samaynayo inuu soo afduubtay iyada erayada Kane ayaa ka careysiiyay Carter wuxuuna ku adkeeyay xariga uu qoorta kaga xiray isagoo u sheegaya inay u dhaqanto sida adoon waxa kale oo uu uga digayaa in haddii ay weligeed isku daydo inay baxsato ay diyaar u noqoto inay qaado cawaaqibka ka dhalan kara isku daygeeda mar kale iyo Baba wuxuu aadayaa meel u dhow webiga si uu u eego doonta Kovan ayaa u sheegay in heerka biyaha oo hooseeya awgeed ay doontu ku xayiran tahay jiinka webiga oo aanay dhaqaaqi karin kadib markuu kormeero Baba wuxuu soo jeedinayaa inay sugaan ilaa aroortii marka heerka biyuhu uu kor u soo kaco si doontu ay iskeed ugu dhaqaaqdo iyadoo kaashanaysa cadaadiska biyaha dhanka kale Paris waxay ogaatay in kooxda saaxiriinta ay soo gaareen meel u dhow Kovan ayaa sidoo kale arkay ciidamada oo u dhaqaaqay inuu qoyskiisa geeyo kaynta Haniwa waxay weydiisatay Magra iyo Paris inay ku dhuntaan gudaha jilif geed weyn halka kuwa kalena ay la dagaalamayaan ciidamada saaxiriinta markan Kovan iyo Haniwa waxay sidoo kale dagaalka kula biireen Baba waxayna dhaawaceen laba askari oo saaxiriinta ka mid ah muddo kadib Butis ayaa ku biiray dagaalka oo bilaabay inuu weeraro ciidamada isla markiiba Paris waxay ogaatay in Magra aysan la joogin oo ay baxsatay intii ay mashquulsanayd waxay ku baaqaysaa in la caawiyo oo codkeeda waxaa maqlaya Haniwa iyo Baba oo dib ugu soo orday Paris ayaa markaa u sheegtay Baba in Magra ay si ula kac ah uga fakatay gacanteeda oo ay tagtay iyadoo ka walwalsan hooyadeed Haniwa waxay bilowday inay raadiso iyadoo ku qaylinaysa magaca Magra muuqaalka soo socda Magra waxaa lagu arkayaa iyadoo ka hortagaysa generaalka saaxiriinta Tamakti Jan oo u soconaysa xaggiisa markuu Tamakti bilaabay inuu u socdo xaggeeda oo uu isku dayo inuu dilo Magra waxay gashatay faraantigii boorsadeeda oo bilowday inay ruxdo dhawaaqa faraantiga ayaa la mid ah kan Kane
markay maqleen dhawaaqii faraantiga Tamagti iyo ciidamadiisii waxay madaxa u foorariyeen xagga Magra. halkan waxaan ku ogaanay in Magra ay dhab ahaantii tahay Cain walaasheed ahna amiirada guriga Cain. mar kale iyo Cainta Baba waxaa la arki karaa isagoo si naxariis daro ah ula dagaalamaya ciidamada saaxiriinta kadib markii uu dilay inta badan nimankii Tamagti Jan. Bootis ayaa u soo dhawaaday oo u sheegay inuu arkay hogaamiyaha ciidamada oo dilaya Magra. markii hore Baba wuu diiday inuu rumaysto, laakiin marka Bootis uu u dhiibo boorsada qaaliga ah ee Magra waa inuu wajaho xaqiiqada. kadib wuxuu ku amrayaa inta kale inay safarkooda horay u sii wataan. Bootis ayaa sheegay inuu si fiican u yaqaan Cainta oo uu ka codsaday inay raacaan isaga iyagoo aan haysan wado kale oo u hadhay. Baba iyo kooxda inteeda kale waxay dabagelayaan Bootis. muuqaalku wuxuu markaa u wareegayaa Magra iyo Tamagti Jan, halkaasoo uu ku weydiinayo waayihii hore oo uu rabaa inuu ogaado sida ay weli u nooshahay. markay tan maqasho, Magra waxay u sheegtay Tamagti Jan inay ka jawaabi doonto su'aalihiisa kaliya haddii uu u ballan qaado badbaadada qoyskeeda. isagoo u quusgoynaya inuu helo jawaabaha, Tamagti Jan wuxuu askartiisa ku amray inay raadiyaan qoyska Magra oo ay hortiisa keenaan iyagoo nool. dhanka kale, Bootis wuxuu qoyska keenayaa god wuxuuna ku xirayaa gudaha qafis bir ah. Haniwa oo yaaban ayaa weydiisay waxa uu ku samaynayo. Bootis ayaa ugu jawaabay inuusan dadka si fudud ugu kalsoonaan. iyagoo rumaysan la oo isaga fiirinaya ayuu goobta uga dhaqaajinayaa. Baba iyo Kofan ma samayn karaan wax kale oo aan ahayn inay ku qayliyaan Bootis oo ay garaacaan derbiyada. Kofan wuxuu ku eedeeyay Haniwa inay mas'uul ka tahay xaaladda oo uu u quursanayaa inay aamintay Bootis. isla markiiba qafisku wuxuu bilaabayaa inuu hoos u dhaco, kooxduna way argagaxayaan. dhanka kale, City of Worms, Cain waxay ka shaqaysaa adoon ahaan warshada xariirta, waxaana la arki karaa iyadoo la hadlaysa shaqaale waayeel ah oo lagu magacaabo Cora. Cora waxay soo jeedinaysaa inay sii wadato shaqada waqti kasta, haddii kale waa la ciqaabi doonaa. laakiin Cain ma dhagaysanayso iyada. kadib waxaa garaacday mid ka mid ah dumarka waardiyayaasha ah. markay la dagaalantay haweenayda waa la garaacay. muuqaalku wuxuu dib ugu laabanayaa waqti ay Cain hor fadhido aabaheed oo dhimanaya, boqorka guriga Cain. waxay u ballan qaaday inay isaga bedeli doonto oo ay daryeeli doonto boqortooyada. waxyar kadib boqorkii dhimanayay ayaa u yeeray Magra oo u dhoweyd oo uu dhegta ugu sheegay inay boqortooyada xukumi doonto mar dhow. waqtigan xaadirka ah, Magra ayaa sheekadan u sheegtay Tamagti Jan oo sidoo kale sheegtay inuu ahaa codkiisa kan u ogolaaday Cain inay boqortooyada kaga guulaysato oo ay xukunto boqortooyada. Tamagti Jan wuu isdifaacay wuxuuna u sheegay Magra inay caruur ahayd waqtigaas oo uu ku taageeray Cain sida ugu fiican ee boqortooyada. Tamagti Jan ayaa markaas weydiiyey Magra sababta Cain ay dadka been ugu sheegtay oo ah in walaasheed ay dhimatay. Magra waxay u sheegtay inay qof walba been uga sheegtay, maantana ay hor taagan tahay isaga. mar kale iyo qafiska, Baba wuxuu weydiisanayaa inta kale inay raacaan isaga. intii ay sii socdaan, waxay la kulmayaan qof kale oo ku soo dhoweeyay deegaankooda. si lama filaan ah, markay Haniwa u dhaqaaqday dhanka qofka daahsoon, kooxda oo dhan waxaa soo weeraray dad aan la garanayn oo way wada miyir daboolmeen. kadib markay soo naaxaan, waxay isku arkayaan isla qafiskii ay ka soo baxeen. Baba ayaa markaa sheegay in dadku ay mar hore dili lahaayeen haddii ay doonayaan, laakiin waxay u malaynayaan inay wax kale ka rabaan. dhanka kale, Cain waxay la hadlaysaa Cora. intay ku guda jiraan wada sheekaysigooda, waxay u sheegaysaa aqoonsigeeda. Cora oo dhab ahaantii u shaqaysa Carter ayaa timid oo waxay siinaysaa macluumaadka ku saabsan xaaladda boqorada Cain. daqiiqado kadib, Cain waa la soo jiiday oo loo keenay Carter. wuxuu dul seexinayaa miiska oo uu ka saarayaa katiinadii boqornimada ee qorta ugu jirtay, isagoo aaminsan inay nasiib badan u keeni doonto. intaas kadib, muuqaalku wuxuu dib ugu noqonayaa qafiska, halkaasoo qof dumar ah ay soo gashay qafiska, taasoo uu weeraray Baba. naagtu waxay sheeganaysaa inay tahay Bootis hooyadii, Delia, waxayna u sheegtay Baba inay halkan u joogto si ay uga caawiso inay ka baxaan meeshan. waxay markaas bilowday inay uga waranto Bootis iyo sidii loo soo koriyey. waxay xustay in dadka ku xiran ay u cagajuglayn jireen sababtoo ah waxay u malaynayeen in awoodiisa aragga ay tahay habaar. Delia ayaa sidoo kale u sheegtay in kadib markii Bootis uu noqday qof weyn, uu bilaabay inuu dilo qof kasta oo u xoog sheegtay ama jir dilay waagii uu yaraa. waxay ogolaatay inay caawiso kooxda, balse waa haddii ay u ballan qaadaan inay u dili doonaan Bootis dembiyadiisii hore isla marka ay helaan isaga. markay tan maqashay, Haniwa waxay ogolaatay in Bootis ay disho. Deliana waxay tusinaysaa dariiqa ay meeshan uga baxsan lahaayeen. waxay keenaysaa wiish u qaadi doona banaanka. nasiib daro, marka Baba uu isku dayo inuu ka shaqaysiiyo wiishka, wuxuu u muuqdaa mid ciladaysan. sidaa darteed waa inuu qof ka dambeeyaa isagoo u qabanaya kabaalka. isagoo aan wado kale haysan, Baba wuxuu weydiisanayaa inta kale inay fuulaan wiishka, wuxuuna go'aansaday inuu qabto shaqadaas. iyagoo ballan qaaday inay dhowaan soo diri doonaan wiishka, Haniwa, Kofan, Paris iyo Paulion ayaa fuulay wiishka, kaasoo bilaabay inuu kor u dhaqaaqo. nasiib
nasiib xumadooda dadka kale ee ku jira qafiska ayaa ogaanaya baxsashadooda waxayna weerareen Baba. Nasiib wanaag wuxuu maareynayaa inuu ka adkaado oo wuxuu ka caawinayaa kooxdiisa inay si nabad ah uga soo baxaan godka. Markii Kufan iyo Haniwa ay isku dayeen inay soo dejiyaan wiishka, fiilooyinkii wiishku way go'een oo waxay ku dhacayaan xagga hoose isagoo burburay. Kadib markuu ka adkaaday qof kasta oo godka kula jira, Baba wuxuu fuulayaa dhagaxyada isagoo soo maraya daloolka wiishka. Si dhib badan iyo xoogaa caawin ah oo uu ka helay Kufan iyo Haniwa ayuu ku maareeyay inuu ka soo baxo godka isagoo nool. Iyaga oo aan waqti lumin, kooxdu waxay sii wadayaan safarkooda kaynta. Dhanka kale Buutis waxaa qabtay ciidamada saaxiriinta oo keenay Magra horteeda. Iyadoo damacsan inay naftiisa badbaadiso ayay u xaqiijinaysaa inuu qoyskeeda ka mid yahay, waxayna ka codsatay Tamaagti Jaan inuu ka tago iyaga. Kadib markuu qof walba uu ka tago, Magra waxay weydiisatay Buutis qoyskiisa. Been ayuuna u sheegayaa isagoo u sheegay inuusan waxba ka garanayn iyaga oo uu isku dayayay inuu raadiyo. Isla markaa Shadow Warriors ayaa yimid oo fariin ugu reebay Tamaagti Jaan. Magra ayaa u soo dhawaatay Tamaagti Jaan oo weydiisay fariinta. Waxaa soo baxday in Carter uu u soo diray katiinadii boqornimada ee Ken oo weydiistay lacag aad u badan oo madax furasho ah. Wax yar kadib Buutis wuxuu u soo dhawaaday Magra wuxuuna u sheegay inuu si cad u arki karo Shadow Warriorska u keenay fariinta ku saabsan Ken. Kadib wuxuu weydiistay Magra inay ka dhigto abaanduulaheeda oo ay siiso fursad uu ugu adeego oo uu ugu soo celiyo walaasheed la afduubtay. Qaybtan waxay ku dhamaanaysaa iyadoo Magra ay si qoto dheer uga fikirayso soo jeedinta codsiga Buutis. Muuqaalkan ayuu ku egyahay. fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.